رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre Wehliyaan wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta safar shaqo ku yimid magaalada Baydhabo si uu ku galo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee shacabka reer Baydhabo. wafdiga uu hogaaminayay raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo boqolaal ka mid ah shacabka reer Baydhabo. رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa uu isla maanta kormeeray jaamacadda Khayre oo isaga lagu magac daray isla markaana uu mushaarkiisa ku bixiyo qarashka ku baxaya waxbarashada ardayda dhigata si uu ugu dhiirigeliyo ardaydaasi in waxbarashada ay ku dadaalaan uuna garab taagan yahay markasta. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la hadlay ardayda wax ku baratay jaamacadda Khayre ayaa raiisul wasaaraha xukuumadda uga mahad celiyay dadaalka uu ku bixiyay in ardaydani ay helaan waxbarasho. والبرشة كده لان تاسوي سلسلة كفاو فرصة سنة لان إن فرصة إيه كفاية ستان فرصة الأول بهلاو ما نصيبة كيلان فرصة إن الله أنت والجيستي أنت خرج كبيدي أو رئيسارة كورة. رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo hadal dhiirigelin dardaarana u jeediyay ardayda ayaa tilmaamay in dhalinyarada waxbaratay yihiin mustaqbalka uu dalkani leeyahay isla markaana looga baahan yahay inay ku dadaalaan waxbarashada. halkan waxaa ka muuqata iftiin iyo diilo gabdho dhalinyaro Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo runtii da'dooda ay aad u yar tahay qaarkood aanan garanayn xataa inay gaareen da'dii jaamacadda laakiin dhalinyaro ay ka muuqato inay haraad iyo gaajo u qabaan inay dhistaan mustaqbal fiican oo wanaagsan intaana kalena la ka rabo inaan ku caawino. waxaan idin sheegayaa sida kaliya oo dalku uu dhibaatada uga bixi karo waa mustaqbalka kaliya ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa idinka waa dhalinyarada laakiin dhalinyaro aan aqoon lahayn dalka dhibaatada kama saari karo. marka jaahilnimadana waxbarashada looga bixi karaa qabyaaladana waxbarashada looga bixi karaa fikir xumadana waxbarashada looga bixi karaa wadani la'aantana waxbarashada looga bixi karaa faham la'aanta muhiimadda dalkaada iyo mustaqbalkiisa uu leeyahayna waxbarashada looga bixi karaa. waxaan idinku dhiirigelinayaa idinkula dardaarmayaa saacadda idinka tagta waa saacad idinka khasaartay saacadda idinka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaartay. cidda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatada ka saarto inay dadka isu keento inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hogaamiso waa idinka. wafdiga uu hogaaminayay raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa qada sharaf waxaa maanta loogu sameeyay beerta Cali Markuus oo ku taala duleedka bari ee magaalada Baydhabo halkaas oo ah meel aad u qurux badan isla markaana ku wanaagsan dalxiiska. dhinaca kale waxa uu raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kormeeray madaxtooyada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Baydhabo.